السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان تسولوا هذا صاحب بيان ما أنت حاجة وحنا فردنا إن أنا فلانقينا وحكنا رانا بوجي لباد إن ما أنت فلانقينا نوحل لها بوجا مدوات تربية تنفتا وبوج رنت عجيبة وحينا قري بوجا قري إمام كيلوين إمام الجوزي سواء كان واحد وقدر على الصومالي إنه ترجمي دكتور محمد إبراهيم سعيد سلطان قريرة بوجان رنتي وبوج إير بقول كونتني اللي بوك كوبين هاي إلا عتبية سجالات إلا صدق جارين وقصة قادنيا كل إن شاء الله يعني واحد مسلف فلقينا سلكي هرمان مسلف فلقينا صاحب كي محمد إن شاء الله يسجل كسود وينيا سو بوك وإحنا وقدها سود وشان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. نرتب بوكنا وبوك آدي قيمة بدن ولا الكنس من الشيء وبوك وقري إمام كازلي هذا إنه الجوزي وبوك كورما ينتبهن تربية النفط يودكت محوها هل دجال ودكت أما تايتل ودكت محوها بوكيسة بوكنا وحيابه كورما يواسده شيويا سجود وحبدقن كمان أحسن مسكحة وتكوبات طلبات وكورما يوحن ليدادو نحوده تصدحنا وحو كورما يصير اللويد بينفطه صدح لهم بو شيخو أنت بدن وكسوقاتي aad baa maasantahay kolka si loo eego meelaha uu aad ku abaarayo waa qofku inuu maskaxdiisa iyo sida uu shaqayso awoodaheeda fikirkeeda wanaagsan ayuu aad ugu nuuxnuuxsanayaa oo maskaxda sidii loogu talagalay hadii loo isticmaalo waxyaabaha laga dheehan kara ama faa'iidooyinka ay leedahay ama natiijooyinka la gaari kara ayuu wax ka odhanaya soo kalena hawada ku soo qaadanaya hawada iyo sidayaabaha loo tacaali karo تصدحات دنا كانوا يدنا بنت نفس قف سوية بين كرا نفتيسا وحياة سيء لو صارها شو محمد هو عدين ونرانو بالحبرقن كونا سنة مسكح هذا بل وحنا وقدر قيبتك إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أن قيبتك وبعد حكك ورميا حبرقن كونا سنة مسكح هذا أيو قضبيستي وحنا كورميا تذكوا كل دوينهن مركا لقى ورميا درينك مسكح هذا يهابك فكر كي يقابل الله استعماله ويكل دوين تهاي يقابك ولالك عدو وضع فكر إنسان وكل دوين تهين قابك عدو ولالها دمان وضع في عدو يعني عن فكر يعني عدو واد كل دوين تهين ومدى سيدنا مانبا واد كل دوين تهين سيدا وفكر يعني إلهي سبحانه وتعالى ذلك وكل دوين أن وحا ومسلحة دي سيدا في عدو فكرته وحيابها كردلن كرا وحا كميدا waxay ku diiranaysaa subxaanahu wa ta'ala in ilaahay subxaanahu wa ta'ala adeecdo iyo rasuulkiisa alayhi salaatu wasalaam takalana muxuuha maskaxdu waxyaabaha aday si fiican u fikirto fikir toolmoon laga helo inta badan waa ta keenta inta marka ugu dambeysana ay ku dambeynayso ficil iyo muxuuha action wanaagsan oo keeni karta hindisaad ay hindisto muxuuha doomaha iyo maraakiibta adduunka ah ka jira iyo technology-ga waxyaabahan hadda jiraba inahaas ayuu sheekhu ku soo qaadanaya runtii waa cajiib maskaxdeenu waa qofo soo ugu isticmaalo hadii maskaxdii wax kastana waxa la ogaaday mirihiisa inta uu leeyahay marka maskaxda miriheedu waxa kamid ah hadii aad sidii loo baahnaado isticmaasho inay ku dhaweyso Alle ku abuuray oo markasta oo ay ku dhaweyso Alle ku abuuray markasta aad isticmaasho maskaxdaada ama fikirka toolmaan aad qaadana ay noqonayso ma in absidaada iyo waxyaabaha ku siisiyaada soo kan waxa ay u badan tahay waxyaabahan ikhtiraacadka qofku inuu wax soo sameeyo ama waxyaabahan la cajibsanay sida hadda waxyaabo ugu dambeeyay sida artificial intelligence la yaabanahay waxyaabaha kale la siyaabi doono ee adduunka kalba ku soo casriyeeyo oo waxa ay keenaysa maskaxdan qofka ay fikirto ay waxayso runtii waa shay cajiiba waa runtii sheekh maxamed markaan inta kaaga nimaano buuku sidoo kale wax ka yar dhacay hawada bal hadii aan wax nooga hawada sida loo tacaali karo hatta hadii aan isbarbar dhigno hawada iyo maskaxda farqi u dhaxeeyo maxay yahay soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وندوهي وما سنتهاي مسكا هودا شيخ وحو كتلماميا وليهي horta waa rabitaan dabiici ah oo muxuuha qofka doonistiisa oo waxa ku haboon uu rabo ayuu ku taariifinaya markuu hawada sheegayo hawadu wuxuu leeyahay hawada horta wax xad ma leh laakiin se muxuuha waxa loo baahan yahay in dabar loo yeelo
iyadoo saa ay tahay sheekhu wuxuu tilmaamayaa hawadu inta badan inay tahay waxyaabaha tan ku amraysa markuu ka warramayo farqiga u dhexeeya maskaxda aragtida maskaxda iyo muxuu ahaa tan hawada in ay tahay maskaxdu in ay markay si fiican u fikirto waxa san iyo waxa xunna ay kala saari karto xagga hawadu ay wax xun ku amrayso xagga maskaxduna ay ku amri karto waxyaabaha wanaagsan ay markaa iyo cawaaqibta ka dhalan karta waxyaabahaas inay maskaxdu si fiican inoogu sheegi karto marka farqiga u dhexeeya haddii si kooban u sheego waa hawadu waxay ku amraysaa waxyaabaha xun xagga muxuu ahaa iyadoo waxa ka dhalan karana aanan muxuu ahaa aanan noo sheegin wax ka dhalan kara xagga ay maskaxdu in amri karto waxyaabaha wanaagsan cawaaqibtana muxuu ahaa iyo waxa ka dhalan karana aan inoo sheegi karto aad iyo aad baa umahadsantahay runtii si fiican baad u abaartay kolka qofku eega maanta waxaa laga daaldhacaya waa hawo qofku hawada sidee buu hawadiisa u xadeyn karaa ama xad ugu samayn karaa maadaama la yidhi bini-aadanku xawayaanku xad ma laha wuxuu doonu iska samayn karaa fadli waxaan ku kala fadilanahayna waa bini-aadanka iyo waa taas weeyaan tayna kala duwaysaa sida ilaahay ku yidhi inhum ilaa kalana bal hum adallu sabiila ku ilaahay ku tilmaamay علشان dadkani kuwani waa kuwa xoolaha lamid ama kaba sii liitaba kolka ilaahay leeyahay quraankiisa u leeyahay علشان waa hawadan baa la eegaya haddii hawadii aad xakameyn kari weydo waxaad noqonaysaa qof xawayaankii lamid iska badaa qof ka sii liita kolkaa bal qofku sidee buu hawadiisa u xakameyn sheekhu wuxuu soo qaadanayaa dhowr qodob ayuu ku tilmaamayaa sida hawada loo dabro ama xindaab lagu sameeyo waxyaabuu tilmaamaya waxaa kamid a qofka muxuu ahaa inuu muxuu ahaa ilaahi subxaanahu watacaala cabsidiisa inuu muxuu ahaa qalbiga gashado waa arrinta uu aad u tilmaamayo sheekhu ta kale wuxuu tilmaamayaa maskaxda inay muxuu ahaa ay maskaxda inuu si fiican u fikiro oo wuxuu leeyahay maskaxdu haddii si wanaagsan u fikirto oo si fiican u fikirto iyada hogaaminaysa muxuu ahaa arrintan hawada oo hawadu waxay u noqonaysaa yani raaciyad bay u noqonaysaa balse haddii muxuu ahaa hawadu ay hogaamiso maskaxda ayaa u noqonaysaa raaciyad oo mid la hogaamiyo ayay noqonaysaa sida markaa qodobada uu tilmaamayo waxaa kamid a maskaxda inuu muxuu ahaa qofku ku dabro maadaama ilaahi subxaana watacaala xayawaanka uu inaga duway si gudba xayawaanka ilaahay abuuray inaga duway oo waxaan kaga duwanahay tahay maskaxda iyo amaanka talabaad cabsida ilaahay qofku inuu qalbiga gashado waxyaabaha uu sheekhu tilmaamayo in lagu dabri karo muxuu ahaa arrintan ku saabsan dabridda hawada iyo baahidaba sidoo kale waxay maskaxdu علشان waxaan inaad ogaan karto matalan ma garanaysaa kolka matalan hadda shahawaadka ama qofka waxyaabahan hawadiisa ay ku amrayso ku sameynayo waa inuu isweydiin karaa waxaanay wax ka dhalan kara hadduu isweydiiyo waxa laga yaabaa inuu markaa uu ka yara istaagay u badanta laakiin hadduuna isweydiinin oo qofkii si taftafa uu ku galo waxa laga yaabaa inuu ka qoomayo marka dambe kolka mar kasta waa inaad maskaxdani waxyaabay ka saacidkuhaya si inaad logic u isticmaasho oo mar kasta waxa sameynaysa aad isweydiiso waxaan waxa ka dhalan kara cawaaqibada yeelan karto sidoo kale inaad alla ku xinaato wax ka saacidi kara sidoo kalena inaad mar kasta aad xasuusnaato inuu adduunkan yahay adduun gaaban oo laga tegi doono aakhirana ay dambayso mar kastana aad ku in laga tegi doono kolka inaas ugu muhiimsan kolley inta kale buuga ugu tegi doontaan hadda intaan ka nimaadno maadaama uu buugkuba uu ka hadlayo tarbiyeyn iyo qofku inuu ama waxaan afka qaado self discipline qofku inuu naftiisa edbiyo sida marar badan qur-aanku soo aroortay علشان waxaa la sheegaa qofka علشان qofku mar naftiisa ayaa la amraa koor intuuna dee wax kale una sameyn kolka bal qofku sidee buu naftiisa u edbin karaa soo kalena qoraagu buuga waxaa jira saddex awoodood uu ilaahay dadka siiyey hadalka kamid ah waa awood ilaahay dadka siiyey waxaa kamid ah damacan iyo wax waa awood ay qofku inuu xakameeyo loo baahan soo kale caarada iyo waxyaabaha hadduu intaa qofku xakameyn karo waxa laga yaabaa inuu dee hadalkiisa hadduu wanaajin waayo hadduu sidoo kale caaradiisi wixiisa uu xakameyn waayo sidoo kale dabiciisa wixiisa hadduu xakameyn waayo waa kan ilaahay ku leeyahay inhum ilaa kalana kolka qof kastana wuxuu isweydiinayaa sidee buu qofku naftiisa u edbin karaa balsha maxaan soo dhow
arrintaas horta waa arrin muhiim ah in nafta la edbiyo oo xakameyn oo la xakameeyo nafta inay noqoto in control naf inay noqon out of control si guud waxyaabaha lagu edbin karo nafta waxaa kamid ah saaxiibida dadka wanaagsan waa si fiican qofku inuu dadka wanaagsan la saaxiibo waxyaabaha keeni kara qofku naftiisa inuu edbin karo sababtoo ah wuxuu ka baran karaa waxyaabo fara badan unan ogeyn qofku wanaagsan waxyaabo badan baa laga dheefaa arrinta labaad oo tilmaamaya waxaa kamid ah ka dheeraanshaha dadka xunxun waa didiidee weeyaan waa ta kasoo horjeedoon dadka xunna waxyaabo badan bay ku horseedi karaan oo ugu horeyso inaadan is xakamin naftaada xakamin karin saddexaad barashada quraanka kariimka inuu qofku quraanka ilaahay uu barto subxaana wa tacaala maalin walba hadduu akhristo oo quraanka ilaahay uu barto ida laftigeega deganaansho iyo alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub waxyaabaha qalbiga ku deganaa waa quraanka ilaahay waa ugu horeeya qaybta afraad qisooyinka faa'iidada leh inuu akhriyo waxyaabaha biographiga hadday tahay taariikhihii yani taariikhda dadkii hore tarjamaadkii ay lahaayeen iyo qisooyinka iyo waxyaabaha qofka hadduu inta badan uu fiirsado waata ugu horseedi karta inuu naftiisa xakamin karo xasuusashada jannada iyo naarta waa muhiim inuu qofku jannada iyo naarta uu xasuusto iyada laftigeega nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayo inaan gerida xasuusno akhiru dikra hadi min ladaat yani macaan duniyaha ka badiya baa laleeyahay si aan dee وحسوسنا آخره إيه محوها وح كإيمان ترى إننا حسوسنا اللي الشيخ وحكسوا جبجبين يا بعد جوب كأصحابتي عليه رضي الله عنهم أجمعين إيه محوها تابعينتي رحمة الله عليه إن إيه لفتي جوجنا عن رعنو دريق ودي عن رعنو ويجا عن كود ينو أديتاي إن آخرسان كرنو كتاب بدن بهذا اللي قال لي في يعني علوم المعاصرين تهاي قرن سيد عبد الرحمن رافد الباشا كتاب صور من حياة الصحابة قف كانوا يكتبوا وآخرسوا الترجمات كي أصحابتي تابعينتا إذا لفتي صور من حياة الصحابيات بدروا ودمر كلفتي جوجا يكده دمر كاي كود ينكران وقف كانوا يشوا قدوة هذا سجود قدوة يلا تو يدا قف هذا كود يتو نفترض حاجة كرتها ونكون أكسنة إن شاء الله تعالى إنها اسمك سوق منها هذه أدب ما صنعتها إن شاء الله ما أنت سفي عبو نوسو قوي قفوا إنه نفتيسا يعني وكاد كذا وحيابه بنيسو وحيابه كسائد وحيابه ونوصل تمامي هذه أدب ما سنتين أنت أبوك سوق بقبيننا إن شاء الله بوجا وحين تكفى فسنة ضربت بوجا لبتيجي تونتا waxyaabooyin badan buu kaga hadlayaa hawada marka la joogo waxyaabooyin badan baa jira shahawaadkii baa jira waxaa jira lacag jacaylkii baa jira ama hantidii qofka inuu hanti jeclaado inuu mansab iyo u jeclaado waxyaabooyin badan baa kamid ah marka waxyaabahaas oo dhan sidaad u xakameynaysid sidaad u ilaalin lahayd wax oo dhan waxaad ku tegi doontaa buugga insha Allah intaasaan kusoo gabagabeynaynaa waa intaynu ku kulmi doona kan iyo Kenya aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته